magaalada la yiraahdo Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka warbaahintii caalamka oo dhan ayaa isha ku haysa sidee wax u socdaan Trump ciidankiisii oo bilaabay inay nagta ka saaraan dad mudaharaadayaal ah oo si nabadgelyo u mudaharaaday haddaba maanta wixii dhacay ayaa caalamka oo dhan ka hadlayaan ninkan adduunyada dhan inuu ku digta raba gudaha dalkiisa xataa u naximaayo magaalada Minneapolis Soomaalida ayaa target u ahay ninkan dadkii la deganaa ayaa ka hor yimid ciidankiisii haddaba waxyaabo la yaab leh oo dhacay maxaadan ogeyn oo ka jira caawa maanta ka dhacay ilaa caawa xaaladdu sidee tahay dariishadaha iyo saqafyada guryahooda la sheegaya in la saaran yahay xaalku meel halis u maraya haloo duceeyo Soomaalideena ku nool magaalada Minneapolis iyo guud ahaan dalka Mareykanka in musiibada iyo sharta uu ninka wado Trump iyo kooxdiisa in Ilaahay uu ka badbaadiyo haddaba barnaamijka xogaha muhiimka ah ayaanu idin kula wadaagi doonaa qadar haysiisa kadib waanu isku soo noqonaynaa kula wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena aan idinku talagalnay maanta oo ay sabti waa barnaamijkii saddexaad haddaba saan hore idinku sheegay barnaamijkeena waxaynu kaga hadli doonaa waxyaabaha la yaab kale ee ka socda Minneapolis Trump ayaa sidii adduunyadii u waday ayuu hadda wuxuu ku bilaabayaa inuu nagta ka saaro Mareykanka waliba cadaankii ayuu nagta ka saaraya maalin dhexdaas wuxuu dilay gabar cadaana haddana waxa lagu dilay Minneapolis ciidankiisu ay dileen wiil cadaana oo waliba nin iska miskiin oo nurses ahaa oo qaybta emergency-ga isbitaalka ka shaqeynay isagoo gabar u gurmanay warbaahintii oo dhan aad uga hadlayso ninkan sidee noqon xaguu geyn kara Mareykanka xaguu ku sii wadaa Iran laga celcelinayaa Venezuela waa aragteen meel kasta saas ugu dhacaya hadda waxay uga dhagan tahay cidii iga hortimaadaba nagta ka saaraya u leeyahay haddaba waxyaabo la yaab leh oo aynaan ogeyn ayaa meesha ka socda la leeyahay haddaba waxaynu halkaa ka samayn doonaa caawa waraysiyo muhiim ah wariye Cali Xaraare oo ku sugan Minneapolis ayaa qadka noogu jira Cali waa ku salaameynaa ku soo dhawaad barnaamijkeena marka ugu horeysa sida ay wax u dhaceen saaka ilaa maantay marka hore inoo soo koob waayahay nadaara aad iyo aad baad mahadsantahay marka hore marlabaadka haddii aan kuu sheego sida wax u dhaceen maanta saacaddu Minneapolis markay ahayd 9 subaxnimo ayaa nin muwaadina oo Mareykan oo cadaana lagu toogtay streetka la yiraahdo Nicollet Avenue oo South Minneapolis ku yaala ama koonfurta Minneapolis haddii si kale u dhigo waa xaafadaha ay Soomaalidu u badan yihiinba Southku marka ninka sida shaashadaha laga daawanayay niman dhowr ah oo ICE ah ama ciidanka ICE ayaa isu qabtay dhulkay ku tuureen way ku joogsadeen waxa laga daawanayaa videoga iyagoo jug iyo laad iyo fed kala daalaya hadii Ilaahay ku reeyay ninkaas kadibna rasaas ay hoos u raaciyeen waxaana wararkii u dambeeyay sheegayaan ninkaasi inuu naf baxay oo isbitaalkaba aanu nolol la gaarin inta kadib waxa dhacday magaalada waxay u ekaatay sidii meel bendow ah aad bay u adkaatay in jidadkii la isaga gudbo baabuurtii socodkoodii arrimahaas oo dhani aad bay u adkaadeen dadkiiba haddana mar kale isu soo baxay cadhadii baa sii laban laabatay waxaan la soconaa shalay in 100,000 oo qof mudaharaadkii u ballaadhnaa ay sameeyeen labada magaalo mataanaha St. Paul iyo Minneapolis garoon la isugu yimid kubadda lagu ciyaaro hadal laga soo jeediyay laakiin dadku ay u arkayeen loo arkay ama ay u muuqdeen qulqulkoodii iyo sidii u qamaamayeen sidii biyo daada oo tog soo rogmaday ay u muuqdeen dadku sidii ay soo haysteen qabowgu nadaara wuxuu ahaa xaqiina marka loo eego -30 centigrade yani qofku wuu soo kogaya 5 daqiiqo ka badan banaan ma istaagi karo iyadoo saas waxay dadkaasi u samreen oo ilaa xal u soo jeedeen u xiiqsanaayeen in laga dulqaado culayska ICE ciidanka immigrationka oo
dadka qabanaya oo siday sheegeen dhibaatooyin iyo sharcigii lagu tumanayo ay ula muuqato. cali waa mahadsan tahay. marka ma jira wax hadda isu soo dhowaansho u eg hadday tahay dhinaca maamulka Minneapolis iyo guud ahaan gobolka Minnesota iyo dowladdan federaalka ee Trump iyo kooxdiisa, ma wax isu soo dhowaanshaa jira mise waa la kala tegay oo xaalku baraka ma lahu maraya? waxaad moodaa inaan weli la isu soo dhoweyn oo mas-uuliyiinta Minneapolis ama Minnesota iyo dowladda federaalka madaxdeedu uu hormuud u yahay madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo ciidanka ICE ninka haystaba in ay aad u sii kala fogaanayaan siyaasad ahaan, oo dilka imika ninkan la dilay iyo cadaadiska lagu hayo waxaa moodaa dowladdu inay ku nafisayso ama ay raalli ku tahay. qolada kale mas-uuliyiinta iyo shacabka iyo muwaadiniinta reer Minnesota ay arrintaa dhibsanayaan oo arrinta ay ka hadlayaan ay sidaa tahay. waxaad moodaa Nadara waa halkaagii in dadkii shacabka qolada ICE ay nagtaa ka saarayaan oo rasaasta ay hoos u dhigayaan, iyadoo aad moodid in sharcigii loo fudeydiyey oo aanay laba caliba isweydiinayn dhibka iyo waxay geystaan ama laga fadhiisanayn. hore ayaynu ogeyn in gabadh ama hooyo 37 jira oo 3 ubada leh la dilay, xaalkeediina markii dambe dowladdu ay soo jeedisay oo ay tiri gabadhaasi iyadaa gardarayd oo baabuurkeeda bay doonaysay inay ku disho askari ka tirsan ICE. marka dowladdu wixii ay geysato ICE difaac adag ayay u galaysaa. shacabka dadkii difaaci lahaa oo ah mas-uuliyiinta gobolkana laftoodii ayaa dacwada lagu soo oogay oo lagu eedeynayaa inay ICE ka soo horjeedaan ama raadi aanay ka ahayn in dowladdu dadka dambiilayaasha waa siday u dhigtay hadalkee iyo dadka sharci darrada ay gurayso, laakiin cid kale aanay dan ka lahayn. ninkii imika la dilay oo kale inkastoo aan la sheegin haddana wuxuu ahaa faahfaahin laga bixin, wuxuu ahaa nin caadiya, wararkiisana waan heli doonaa, oo la dooday qiyaastii nimanka iyaguna ay markiiba dhibsadeen oo ay dileen. gabadhii horena iyana waxay ku doodaysaa ama dadkoodii ay ku doodayaan aan idhaahda iyadu way dhimatee in gabadhaasi ay si xaqa u qaylinaysay meeshana ay uga baxaysay oo bay ka baxaysay gaarigeeda marka la eego sawirka iyo footage-ka inay sii socotayba, haddana waxaa lagu buuxiyey in dhibka ay geysatay. marka waxaan odhan karayaa xaaladda gobolka Minnesota markaan soo koobo Nadara waxay u socotaa si adag ama meel xun baad moodo inay ku socoto ama xaaladdu ay ka sii darayso haddaan ilaahay faraj u furin dadka shacabka iyo dhibanayaasha oo dadka Soomaalida u badan. waayahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa cali xaraare oo markaa isagu toos noogu waramayay isagoo jooga Minneapolis. haddaba waxaynu galaynaa warar cusub oo haddana ay isdhaafsadeen Trump iyo maamulka gobolka Minnesota. sheekadu farahay ka sii socota. Soomaalida halkaa ku nool iyo guud ahaan Mareykankana mar kale waxaan ku celinayaa inaanu u ducayno in ilaahay dhibaatada iyo sharta uu ninka wado ilaahay uu ka saaro. haddaba warar kale oo muhiim ah inoo soo socda qadar xayisiisa ayaynu ku hakanayno. waa tahay kulan wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan. waa qaybihii dambe ee barnaamijkeena habeennimo. saan hore idinkugu sheegnay caawa barnaamijkeena waxaynu ku qaas yeelnay dhibaatada ka jirta Minneapolis. Soomaalida badan ee halkaa ku nool cabsida la soo diristay. xaalku wuxuu malayaa allow sahal ayuu marayaa, baraka ma leh ayay maraysaa. waaya markan waxaa qadka isla ku jira wariye ku sugan dalka Mareykanka oo la yiraahdo Cabdi Iftiin oo aad ula socda siyaasadaha iyo waxa ka socda dalka Mareykanka. Cabdi waa dhageysanaysay cali xaraare wuxuu ka hadlay wixii dhacay maantay iyo xaaladdu siday tahay. marka waxaad nooga warantaa warbaahinta markaad dhageysay oo aad dhageysatay caawa waxa rasmiga ee ka socda hadda aan kula hadlayo maxay yihiin maxaa ka socda hadda warbaahintu maxay leedahay Mareykanka? waayahay Nadara aad iyo aad u mahadsan tahay. xaalka magaalada Minneapolis caawa aad iyo aad ayuu u cakarin yahay.
waxyaabaha cajiibka ay caawa la arkayo waxaa ka mid ah in dadka mudaharaadayaasha ah xogaa tacticadii qaabka mudaharaadka ay uga qayb geli jireen ay wax ka bedeleen waxaa la arkayaa dadka oo daaqadaha koray sidoo kale dadka oo saqafyadii caawa fuulay waa dadka shacabka ahaa ee mudaharaadi jiray taasoo ka dhigan in xaalka uu faraha kasii baxay oo difaaci la kala gelay difaacyo ayaa caawa magaalada la kala xiranaya waqti xadirkan kulley aan wada hadleyno mudaharaadyo ballaaran iyo rabshado aad u badan saxaafadda waxay ku qiyaasaysaa rabshadaha Minneapolis ka socdo goob dagaal ama meel dagaal uu ka socdo sida Vietnam iyo Soomaaliya iyo Korea iyo yani Mareykanka saxaafadooda ay uga hadli jireen oo kale ayaa caawa Minnesota ama Minneapolis looga hadlaya watahay cabdi iftiin waa maadsantahay waa kaa dhexgalayaa waxaan ku weydiinayaa marka maadaama siyaasaadkan Mareykanka aad ula socoto waxaad noo sharaxdaa ciidankan ka socda federaalka ay halkaa jooga iyo ciidanka ay leedahay Minneapolis iyo gobolka Minnesota maadaama naga baxa leeyri ay diideen soo ayagu jugta iskama gelin karaan oo ma isgaraaci karaan mise dastuurka iyo waxba hortaagan maxaa se caawa ka soo baxay dhanka Trump iyo dhanka kale warbixin kooban inaga sii waayay kulay gobernatoraha magaalada ninka loo yaqaan Tim Walz asaga hadal u jeediyay caawa isla hadalkiisa waxa ku jiray in uu soo saaray ama ood uu ka qaaday kooxda loo yaqaan National Guardska oo ah ciidamada Minnesota u diiwaan gashan ee kaydka ugu jiro oo markii dhibaatooyin ballaaran oo waaweyn ay dhacaan oo kale la soo kiciyo si amniga ay u sugaan kooxda National Guardska waa military oo qaab military u tababaran yihiin booliiska way ka duwan yihiin qoryo waxay wataan bistoolad mootaan ayaga qoryo wataan marka dadka yaqaan National Guardska waa sidii military oo kala waay wadooyinka lagu soo daadiyaa gawaari qafulan oo daabulna way wadaan caawa marka Minnesota taas ayaa ka socoto Nicolas Jacob Frey oo asagana ah mayorka magaalada waa ina kala fahanaa kole Tim Walz waa gobernatoraha Minnesota waa gobolkii magaaladan loo yaqaan Minneapolis oo Soomaalida ugu badan ay degan tahay waxaa asagana duq magaalo ka ah ninka loo yaqaan Jacob Frey oo wiilka Soomaaliyeed la tartamay hadda dhowr bil ka hor ee ku guuleystay doorashadaas Donald Trump kooxdiisa dowladda federaalka ah iyo state-ka ayaa caawa ishaayo ummadda Soomaaliyeed waxa rabaa inaa u bayaamiyo maxay tahay farqiga u dhaxeeyo state-ka weyn ee Minnesota iyo soo kale dowladda federaalka oo madax u yahay ninka la yiraahdo Donald Trump adiga waa sida Soomaaliya oo kale laakiin waxay ka duwan tahay Soomaaliya waa aragnaa kulli madaxweyne leedahay Soomaaliya guud ahaan maamul goboleedyadana madax ay leeyihiin Soomaa maamul goboleedyada Mareykanka gobernatore ay leeyihiin marka waxaa jiro awoodo dowladda federaalka ee leedahay waxa ka mid ah awoodda soo qabqabashada iyo u diridda ciidan u gaar ah si loo soo qabqabto wax alaali wixii la xiriiro immigrationka waxa ka hadlaynaa immigrationka waa suugulootiga qof suugolooti ah haddii la bartilmaameedsanayo ama qof dembi galay ee federaalka dembi ka galay xuduud ka soo gudbay adiga wax un sameeyay dowladda federaalka ayaa awood buuxda u leh inay daba gasho guryaha ugu tagto waa sababta marka dowladda federaalka ee u dirtay ICE iyo qolada loo yaqaan Border Patrolka state-ka marka waxa xadidayo dastuurka oo waxba kama qaban karaan tusaale ahaan state-ka ma soo xiri karo mana fargashan karo howlgallada ay wadaan ICE marka waa sababta Soomaalida inteeda badan xoogaa laga yaabo inay ugu wareersan tahay haddii police ay leeyihiin Minnesota booliiskii uu gacanta ku hayo gobernatore Tim Walz iyo sidoo kale ciidamada National Guardka maxay uga ceerin la yihiin ICE iyo Border Patrolka ciidamada dowladda federaalka ah ee arrimaha immigrationka qaabilsan dastuurka u diidayo ay yani tabartooda yani u geen waayay inay bal maaragtay wax ka qabtaan xaalka marka wuxuu u muuqataa maalimada axadda oo berri ah in xaalka uu kasii dari doono maadaama hadda difaacyo lagu wada jiro oo dadka shacabka ahaa dilka ninkan wiilka dhalinyarada maanta loo geystay oo asaga nurse ahaa isbitaalka shaqaynayay iyo dilkii gabadhii kasii horeysay oo ayadana hadda muddo 2 isbuuc laga joogo ayadana lagu dilay isla bartamaha Minneapolis wuxuu u muuqataa marka in xaalka uu kasii xanaajin doono dadka ayaga aadka uga soo horjeeday howlgallada ICE ay wadaan dowladda federaalka ayadana waxay u muuqataa inaysan dhinacna u durqeynin oo ay ku adkaysanayso in howlgallada ay ka wadaan magaalada Minneapolis ay sideeda u sii socon doonaan marka cid dib u degayso haba yaraatee ma jirto waxay u muuqataa in iska horimaadka iyo mudaharada lagu haayo ICE iyo Border Patrolka oo ayaga bartilmaameedsanayo
soo qabqabashada dadka soo galootiga oo Soomaali ay ku jiraan iyo dadyow kale iyo dadka magaalada qaarkood oo ayagana aad uga soo horjeedo qoladan ICE oo ku eedanaya ICE in ay duulaan ku yihiin qoysaskooda iyo qaraabadooda iyo saaxiibadooda iyo dadkan soo galootiga ah ee magaalada degan ee ayaga iska shaqeysto. واتهاي عبد إفتن وري عبد إفتن أيوها أو يسوون أمريكان كجوجا أو وركي قدام بيجي هل كانوا جسوا قد بني هذا بقى تلفزيون كالجزيرة أيا يسوون وحولية هاي حالة هالس بدن أيا كتاجن مينيابوليس مركا حالة داسو ضدك هالكا كنول المظاهرات ياشا يو إذا كان ترام والله يسايا marka aanu ducayno dadkeena Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer Mareykan gaar ahaan Minneapolis xaalad adag ayay wajahayaan leeyahay waliba maalmaha soo socda cabsi weyn ayaa jirta marka wixii cusub waan idin la wadaagi doonaa hadii alla idno hadaba barnaamijkeena caawa oo aanu ku gaar yeelnay inaynu ugu ducayno dadkeena Soomaaliyeed ee Mareykanka gaar ahaan Minneapolis inta ayaan ku soo gabagabeynayaa fakari aragti waxaad hayso noo soo qor adikuna ducada soo qora haddaba like gareeya barnaamijka oo share gareeya inta aan mar kale kulmayno asxaabay meel kasta oo aad joogtaan